السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر ضمان باخيارتا شرفتا حشمدا iyo qadarinta meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni Jaleecada Jimcaha daawadayaasha sharafta leh barnaamijkeena Jaleecada Jimcaha toddobaadka hore waxa aynu ku soo qaadanay ama aynu kaga hadalnay application-ka la yiraahdo TikTok toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa mid kale oo ka sii daran kii aynu toddobaadkii hore ka hadalnay oo la yiraahdo Telegram daawadayaal toddobaadka waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena Jaleecada Jimcaha Telegram iyo qaabka ay Soomaalidu u adeegsatay barnaamijka Telegram oo qaab isticmaal ahaan ka duwan qaabka TikTok oo u samaysan qaabka WhatsApp-ka programka asalkiisu waa program aad iyo aad u fiican marka la isticmaalayo waxa loo isticmaalaa waxbarashada iyo wixii la mid ah waxbarashada wax ku kaydsiga iyo wada xiriirka sidaas oo ay tahay programkan asalkiisa ruushka ayaa iskale waxaana la aasaasay 2013 waxaana aasaasay laba nin oo walaalo ah oo la kala yiraahdo Nicole iyo Bofal Drof xaruntiisa ugu weyn application-kana waxay ku taalaa Dubai Imaaraadka Carabta wagaag daawadayaal ujeedada barnaamijku ma aha inaynu kaga hadlo taariikhda gaarka ah ee Telegram waxyaabaha uu ka saabsan yahay wixii loo sameeyay iyo waxa kama hadlayno laakiin ujeedada barnaamijkan aynu kaga hadlaynaa waa sida kii hore oo qaabka ay Soomaalidu ay u adeegsatay Soomaalidu waxaad moodaa wax kasta oo wanaagsan inay xumaynayso baraha bulshadana saynu toddobaadka horeba sheegnay way ku hafatay kii hore waxa aynu kaga hadlaynaa sawir la soo dhigay iyo waxyaabo kale kan waxa loo isticmaalay qaab aad iyo aad ula yaabi doontaan Soomaalidu ka waxay u adeegsatay inay u isticmaalaan sida website-da ama application-da pornograph-ka ee lagu baahiyo filimada xunxun ee anshaxa xunxun kan waxa loo adeegsaday qaab aad la yaabayso waxaana inta badan ay ka samaysteen qolal iyo ma garanaysaa channel ay ku kaydsan yihiin intaas dhowr boqol ama kumanaan gabdhood oo Soomaaliyeed oo qaawan iyo intaas oo video ama muuqaal oo ma garanaysaa deer anshaxuma ama dhaqan xuma sidaas oo ay tahay programkan dhankiisa wanaagsan looma isticmaalin ee waxa loo isticmaalay dhankiisa aad iyo aad ugu xun waxa aanad la yaabaysaa ama aanad la tacajabaysaa dad waaweyn oo caana fanaaniin YouTubero wariyayaal wax la mid ah oo lagu leeyahay heblaayo qaawan oo fanaanad heblaayo qaawan ayaanu haynaa groupka Telegram-ka halkaas ku jirta linkigiisaan ku soo diraynaa lacagta noocaasa iska bix haddii aad lacagta bixisidna waad helaysaa boo muuqaalka oo istiraahdo bal waxaan u sheegayaan bal inuu xaqiiqo yahay yeen kala la eeg waad helaysaaba waaba xaqiiqaba waaba heblaayadii la sheegayo qaawan mayada iska duubtay kamarada qarsoonba guriga loo dhigay balaayo kala wax ka duubay shayaadiiba wax ka duubtay lama yaqaano laakiin haddii aynu falaqaynta barnaamijkeena kaga hadalno inta badan dadkan qaqaawan heblaaya la soo qarxiyay heblaaya laga garbaxay heblaaya maanta la daawanaya heblaaya waxa aad iyo aad ula yaabayso ma garanaysaa anshaxa in laga hadlaaba aan ku haboonayn sidaas oo ay tahay haddii aynu ka hadalno cidda waxaan ka duubtay dumarka ama hablaha ama dadkan aynu ka waramayno oo tabida koowaad iyaga ayaa iska duuba oo inta badan dadkeenan ilbax iska dhiga ee yiraahdo waan ilbaxnay ilbax macnaheedu waa il iyo bax ilbax dhaafnay allow noo saalbay Soomaalidu hore oran jirtay oo qofku markuu wixii uu yaqaanay wax ka duwan uu baxo waa ilbax dhaafnay allow noo saal toddobaadkii hore waxaynu ka hadlaynay gabadhu inay mobilkeeda intii muuqaal iskaga duubtay ay wax isku moodo kan waa laga tagay gabadhu inay iyada oo qaawan oo sidii hooyadeed ku dhashay oo awradeeda iyo naasaheeda iyo meelaha jidhkeeda ugu waalan ay intay duubto dabadeetana iyadoo u aragta xaragaha ugu dambeysay ay ku kaydsato telefoonkeeda amba mobilkeeda inta badan dadkaasi waxay sitaan telefoonada Apple-ka la yiraahdo ama iPhone-nada oo ay fududahay marka la eego la jabsan karo sidaas oo ay tahayna waa laga jabsadaa muuqaalkeeda dabadeetana waaba la wareegaa saas lagu la wareegaa qodob labaad ayaa yimaada oo ah inay rag intay dumarka ama hablaha soo khiyaameeyaan ama ay kiraan kadibna ay daroogooyin iyo wax la mid ah ay siiyaan kadibna intay ku tacadiyaan oo nidaamka ay kala haayeen ay ka gaaraan kadibna ay muuqaalka ka duubaan inta ka bacdina ay fiidiyoga waxay ugu yeedhaan waa la rakaateeyay oo macnaheedu yahay in fiidiyoga qofka lagu ceebeeyo oo qofka hadhow toole hadii uu qofkan ama uu ka eed sheegto ama uu ka dacwoodo ama uu yiraahdo waxaan igu sameeyay gabadha dacwooto inuu yiraahdo muuqaal aad qaawan tahay oo noocaasan haya waxaan ku sii deynaya baraha bulshada si Soomaali iyo intii la midka ah ee ku xidhan oo dhan ay u daawato adna ay faaxadna
ay maaragtay hawada uga baxdo sidaas oo ay tahay gabdho badan qodobka labaad iyo gabdho badan qaabkaas ayaa iyagana looga duubaa haddaba waxa aad iyo aad aan ula yaabanahay ama aan aad iyo aad ula yaabay tan dee la khiyaameeyey ama la leeyahay wala rakaataynaya ee raka duubeen inadee garanaysaa maankeeda la dooriyey garanaya kuwan iyagu intay isqaawiyaan oo dabadeedna sariirtooda seexdaan kadibna muuqaal iska duuba kadibna ku kaydsanaya sidii sawirradii moobilada maaragtay gallery lagu kaydsan jiray iyagu moobilkii ku kaydsanaya ayaaba ah wax aad iyo aad loola yaabo kulli dadku way kala horeeyaan waa qayb horeynta iyo ilbaxnimada kamid ah haddaba waxa naxdin leh waxaad arkaysaa hooyo caruur leh oo iyadoo qaawan oo ma garanaysaa dee waxaan laga hadli karina meelaha leeriya iyo leeyahay Telegram group bay ku jirtaa meel heblaayaan soo dhigayna caynkaasad ilmaheedii ay dhashay ayaa daawanaya oo arkaya mustaqbalka marka ilmihii yaraa uu goobaha tago sharaxda ka kaftan ama asaga la hadal waxa la oranaya Armeenkii hooyada Telegramka wali jirtay nin hooyadii suuqa taalo sidee hadli karaa mustaqbalka ama nin walaashii ay ma garanaysaa ay suuqa taalo sidee ayuu hadli karaa ama nin ma garanaysaa xaaskiisi ay ma garanaysaa ay dibadda taala sidee ragula kaftami karaa intaynaanu gudbintay ma garanaysaa waxay intan diin iyo anshax iyo waxaba loo gudbin bal hadda talafteeda hadii aynu ka hadal xageebo maraya waxa aad loola yaabo Soomaalidu bari bulshada way ku hafato way niga toddobaadkii hore ka hadalay oo waxay noqotay rah inta ma garanaysaa laga soo qaaday warihii uu ku dabaalan jiray ama baliyada yaryar waqaani kadibna badweynta la geeyay deedna lagu tuuray sidoo uu noqonaya de waa rahbad lagu tuuray baynu noqonay programmadan aynu ka hadlaynaa waa qaar aad iyo aad u ma garanaysaa u wanaagsan oo xagga wanaaga marka loo isticmaalo waa ku wanaagsan laakiin maxay wixii xunba Soomaalida ayaad moodaa inay xaynka ku wadato oo xagga xunba loo isticmaalaya programka laftiisa ama applicationka laftiisa marka la qaabka loo isticmaalo wax noqonaysa inaad maaragtay ka cararto oo dad badan oo waxaan arkay yiraahdo Telegram iyagu marka la yiraahdo ama Telegram baad u baahanahay yiraahdo soo qaadi Telegram community kii hawla gaarkay ka soo jireen dad badan baa la yaabi doona barnaamijka marka dhageystaan ama waxaan ka hadlayo oran doona mala been buu sheegay been ma waa xaqiiqo idigu arki kartaan intii aqoonta dheeraadka u leh baraha bulshada ama de waxuun indhaysay soo ay tahay Soomaalidu qarniga la joogo waxay maraynaa qarni qursamaamay mal ayaga u tahay oo deeynadu garan mayne waxaan oran lahaa ceebta hablaha la asturo de waxaan aad iyo aad ula yaabanahay doorta halka la maray oo wax meel laga yaqyaqsoodo oo de ma garanaysaa aad iyo aad loola yaabo mulkiilaha Facebook ayaa waa hadlay oo Mareykanka ka hadlay Mark Zuckerberg ayaa waxa uu yiri Soomaalidu waxaan kaga yaabay waa qayl badan yihiin way dhawaaqaan wuxuu yiri xagga wanaagsan ma kula talin lahaa buu inay isticmaalaan bartayda Facebook isagu dhanka Facebook uu ka hadlay waa laga tagay hadaba Mr. Zuckerberg Facebook hadda waxa la maraya Telegram iyo TikTok ayaa la maraya labaduba inay qiimo qaarada Aasiyaanka oo kala mid ah kuwa isagu kula jiray challenge-ga ama tartanka uu kula jiray sidaas oo ay tahay waxaan kula talin lahaa dhammaanba Soomaalida deynta aqliga leh ku hadhay ama inta maamusho ama culimada ama qolada warbaahinta ama aqoon-yahanka ama in aad iyo aad looga hadlo programmadan kan oo kala iyo wixii la mid ah oo dadka laga wacyi geliyo xumaanta hadii aanad ka hadal oo aanad ma garanaysaa aan wax ka qabanin aakhirka adiga ku maaragtay ku saameynayaan ay ku qaadanayaan biyo kugu soo socda hadii aanad moos isaga dhigin aakhirka adigu daadku kula tagay waa hagaag daawadayaasha sharafta xushmada iyo qadarinta leh nagala socda arag media Dhexnimo TV meel kasto aad dunida ka joogtaan waa salaamaya magacaygu Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar inta barnaamijkan ku xiga ku kulmi doono hadii Allah awood la yiraahdo waxaan idinkaga tagayaa wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh